kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada qodobada wararka ugu waaweyn ee Soomaali Channel aad kala socotaan. Faahfaahinno ka soo baxaya sarkaal daldalaadiisa maanta lagu arkay Muqdisho kana tirsanaa booliiska Soomaaliya. Mooshin la sheegay in laga abaabulayo lagana wado gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. Doorashooyinka Jubbaland ee baarlamaan imada madaxweyne oo saameynteeda laga dareemayo Muqdisho iyo Kismaayo. Dr. Bursalid iyo aqoon-yahano kale oo maanta la soo taagay maxkamad ku taala Kenya. gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo si kulul u weeraray kana soo horjeestay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. wasiirka gaashaandhigga iyo xubno kale oo maanta gaaray magaalada Baydhabo iyo faahfaahin laga helayo socdaalkooda iyo durida oo dadkii markan ay quruxdoodii bedelayaan sanka ayaa la dheereynaya warbixin baad ka maqli doontaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaad Soomaali Channel kala soconaysaan mar kale habeen wanaagsan warkii oo dhan aan ku horeynay mooshin ayaa lagu waramayaa inay wadaan xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waa xildhibaano kuwaas ayaa la sheegay in mooshinka ay ka diyaarinayaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Ibraahim Sheekh Muudey gudoomiye ku-xigeenka oo haatan dalka ka maqan isla markaana ku sugan dalka Turkiga ayay xildhibaanadu waxa ay sheegeen in ay mooshinka wadaan qaar kamid ah Muqdisho ku sugan warbaahinta qaarkood ayaa sidoo kale aad u qoraya gudaha Muqdisho waxaana la sheegayaa in mooshinka la diyaariyay balse aan wali la gaarsiinin gudoonka golaha shacabka si mooshinkaasi loo aqbalo ama loo diido sharci ahaanshihiisa loo meel mariyo hase ahaatee xildhibaanada ayaa la tilmaamaya inay aruursanayaan mooshinkana uu meel dhexe marayo iyadoona xildhibaanadu ay ku doodayaan inay ka keeneen gudoomiye ku-xigeenka koowaad isla markaana ay tahay in xilka qaadis ay ku sameeyaan Muqdisho ayaana abaabulkaasi laga dareemaya gudoomiye ku-xigeenkan ayaana lagu xasuustaa kaalintii uu ka qaatay markii la ridayay Maxamed Cusmaan Jawaari oo ahaa gudoomiyihii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiwali Ibraahim Sheekh Muudey ayaana la ogeyn halka mooshinkan uu ku sii dambeyn doono laga keenay dhinaca kale faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya sarkaal maanta meydkiisa lagu arkay xerashalare oo ah xerada ay leeyihiin ciidanka daraawiishta ee booliiska Soomaaliya degmada Xamarjab ku taala sarkaalkan ayaa ka tirsanaa ciidanka daraawiishta ee booliiska Soomaaliyeed waxaana lagu magacaabayay gaashaanle dhexseed wuxuu ka tirsanaa ciidanka booliiska gaar ahaan kuwa la yiraahdo daraawiishta xerada daraawiishta ayuu hadda ka hor sida ay eheladiisu sheegeen iyo dadka yaqaanaba waxa uu ka soo noqday taliye xaaskiisa oo halka uu isku daldalay xer daraawiish ama xerashalare ku hadashay waxa ay sheegtay inay qabto tuhun ah inuusan ninkeedu isdilin balse la dilay waxaana ay dalbatay in baaris lagu sameeyo mar ay hadashay waxa ay sheegtay in markii ugu dambeysay ninkan shalay la amray in gurigu iskaga baxo ay tahay dhul dawladeed iyo halkii ay deganaayeen ama xerada u ahayd saraakiisha daraawiishta hase ahaatee isagu uu dalbanayay in muddo la siiyo 4 maalmood loo qabtay taasina ay tahay waxyaabaha taagnaa Jubbaland markaan eegno halka xilligan uu madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waqtigiisuna sii dhamaanaya doorasho ayaa la qabanqaabada doorashada ayaa ka socota magaalooyinka Kismaayo iyo Muqdisho khilaafka wali u dhaxeeya madaxda Jubbaland iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ah mid taagan hase ahaatee doorashada ayaa la tilmaamaya in sidoo kale uu saameynayo khilaafkan maxaa yeelay odayaasha qaar ayaa ku waramaya warbaahintan oo sheegaya in abaabulka soo xulista xildhibaanada ee baarlamaanka Jubbaland ay ka socoto Muqdisho iyo Kismaayo waxa ka wada Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaanaya ee Jubbaland halka Muqdishona lagu waramayo in xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo siyaasiyiinta Jubbaland ay ololahaasi Muqdisho ka wadaan waan eegi doonaa halkan ayaadna kala socdaan wixii ku soo kordha qodobkaasi Kenya oo shalay lagu xiray Dr. Ibrahim Faarax Bursalid iyo rag kale oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa maanta raggii shalay ay Kenya xirtay waxa la soo taagay maxkamad ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu soo eedeeyay argagixisanimo iyo falal argagax la xiriira in ay ku lug lahaayeen maxkamadda Kenya ayaana amartay in muddo 4 maalmood ah xabsiga lagu sii hayo isla markaana baaritaanka raggan lagu hayo uu noqdo mid sii socda Dr. Ibrahim Bursalid iyo saddexdan nin kale ee xabsiga lala soo taagay maxkamadda lala soo taagay ayaa shalay ay booliiska Kenya ku xireen magaalada Nairobi ee dalka Kenya eedaynta la xiriirta in Dr. Bursalid iyo ragga kale ee maxkamadda lala soo taagay ay qayb ka yihiin ama lagu soo eedeeyay argagixisanimo ayaa lagu eedeynayaa dowladda Kenya inay qayb kaga dhigayso culayska siyaasadeed ee ay dowladda Soomaaliya saarayso isla markaana ay ku doonayso in laga soo laabto dacwadda badda ee ay Kenya doonayso in laga soo laabto dhinaca kale markaan eegno
gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolkaasi Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa maanta ku qabtay magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan shir jaraa'id oo aad xasaasi u ah. Shirka jaraa'id waxa uu kaga hadlay arrimaha gobolka Hiiraan iyo Hirshabelle. Yuusuf Dabageed waxa uu si cad uga soo horjeestay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo uu ku eedeeyay inuu cadaalad darro ku sameeyay shacabka gobolka Hiiraan. waxa uu yiraahday shacabka gobolka Hiiraan lacag baa laga qaadaa madaxweyne Waare waxa uu amray in lacagta aan ciidanka la siin gobolkan waxa loogu tarin balse la aruuriyo hasahaatee waxa uu sheegay in shacabka Hiiraan oo lacag laga qaado aanan waxba loogu qaban sida gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu sheegay eedeynta Yuusuf Dabageed uu u jeediyay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dadka ku sugan Hiiraan ka agdhow maamulka waxay sheegayaan inay salka ku hayso arrin la xiriirta lacagta canshuurta ah shacabka gobolka Hiiraan laga qaado oo madaxweyne Waare uu rabo in maamulka Hirshabelle loo gacan geliyo halka Yuusuf Axmed Hagar Dabageedna uu doonayo in iyagu ay aruuriyaan isla markaana iyagu lacagtaasi ay noqoto mid ay maamulaan gobolka Hiiraanna khilaafkan waa uu saameynaya shacabkan walaac ay ka qabaan. wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cali Amar Dambe ninka la yiraahdo ayaa maanta isaga iyo xubno kale oo hogaaminayo wafdi ah waxa ay gaareen magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. wasiirka faahfaahinta laga bixiyay safarkiisa waxa lagu sheegay in birita halkaasi waa magaalada Baydhabo uu ka furi doono tababar la siinayo ciidamo ama askar ka mid noqonaya ciidanka militariga Soomaaliya. wasiirka ayaa taliyaal ciidan iyo saraakiil kale oo la socda waxa ay sheegeen in sidoo kale laga shaqeynayo xoreynta deegaanada Koonfur Galbeed ee ay wali al-shabaab ku sugan yihiin. wasiir Amar Dambe ayaan halkaasi ku sugan doona maalmaha soo socda waa magaalada Baydhabo gobolka Bay. markana qodobka ugu dambeeya warkeena hadaan soo qabanno dunida markan waa la isbedelaysaa waxaana la leeyahay meelo badan cajiib ah ka taagan Soomaaliya saameyn ay ku yeelatay markan Soomaaliya sidii loo soo waday wax waliba waxa la keenay in dadku loo keeno qalab la sheegay in sanka lagu dheeraynayo waa dad markan doonaya in dib u eegis ay ku sameeyaan habkii Ilaahay uu adoomadiisa u uumay. dunidan xagee u socotaa baa la leeyahay oo ma wanaagsana culimaduna way ka digeen dadkuna markan waxay noqdeen kuwa ku mashquulaya nabadgelyo wararkeennii caawa waana intaas mahadsanidin.